بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألهمنا حمده وصدقنا وعده ومن علينا بنعمة الإيمان. إن شاء الله تعالى waxaa sheekhu halkan nooga bilaabayaa kitaab la yiraahdo fiqhu siyaam, sheekha la yiraahdo Maxamed ibn Xasan Hiitu. kitaab markaa ku tacalluqa kulligiisba siyaamka xukunkiisa, xilligii markaa horeeyey iyo xilligii dambeeyeyba. wuxuu yidhi sheekhu alxamdu lilaahi, alxamdu mahad lilaahi, ilaahay bay u sugnaatay, alladii allihii oo alhaamanaa nagu ilhaamiyey xamdahu xamdigiisa inaan ku xamdinno allihii nagu ilhaamiyey, oo wasadaqanaa haddana noo run sheegay wacdahu yaboohiisa noogu run sheegay, wamanna nugu galladaystay calaynaa korkanaga binicmati liimaani, iimaanka nicmadiisa nagu galladaystay, wahadaanaa nugu hanuuniyey ilaa subuli salaami, nabadgelyada waddadeeda nugu hanuuniyey, oo wasadada toosiyey khudaanaa tillaabooyinkeena toosiyey bilitibaaci raacidda nebiga la raaco tillaabooyinkeenna ku toosiyey, wasadada toosiyey khudaanaa tillaabooyinkeenna bilitibaaci nebi raacid ku toosiyey in nebiga la raaco calayhi salaatu wasalaam, duuna alibtidaaci bidca bilaabasho ka sokay, annagoon ibtidaacaynin oo aanan bidco bilaabanaynin oo bidco falaynin, markaasi itibaaca nebiga nagu toosiyey tillaabooyinkeenna ku toosiyey, wabilinqiyaadi hogaansana ku toosiyey duuna alcinaadi madax aday ka sokay. inqiyaadin markaa ilaaha tillaabooyinkeenna inqiyaadka inaan hogaansanno oo shareecada muxamediyada u hogaansanno ku toosiyey, duuna alcinaadi madax adaygii ka sokay. wasala allaahu allaha u naxariisto naxariis tacdiim lala xidhiidhiyey, wasalama allaha nabadgeliyo calaa nebiyihi nebigiisa dushiisa, wa musdafaahu calaa musdafaahu nebigiisii la doortay, muxamedin nebiyullaahi muxamed ahaa, muxamedkii ibni cabdillaahi cabdillaahi inankiisii ahaa, alladii nebigii ahoo atama allaahu ilaahay uu taam yeelay calaynaa korkanaga bihi bisababihi sababkiisa nicmata nicmada ilaahay uu noogu taam yeelay, oo wa akmala ilaahay uu kaamil yeelay lana annaga uu noo kaamil yeelay can dariiqihi min dariiqihi nebiga dariiqiisa xaggiisa addiina diinka ilaahay noogu kaamil yeelay, dariiqa nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisana diinka ilaaha noogu kamilay. salaatan salaad allah nebiga ku salliyo, salaadaasoo taliiqu laa'iqa bimaqaamihi nebiga maqaamkiisa sala allahu calayhi wasalam, salaadaasoo mimaa kii ah yacjisu uu ka cajisayo allisaanu carabku uu ka cajisayo can buluuqihi gaaridiisa, maagaas gaaridiisa. waxyaabaha annaga lisaankanagu inuu gaaro ay ka cajistana salaad ah buu yidhi, inay lisaankanagu gaaro mid ay ka cajistay oo aana gaari karin, waa ilaahay salligiisa ee uu nebiga ku sallinayo allaha ku salliyo nebiga sala allahu calayhi wasalama, iyo wa bayaanihi can buluuqihi maagaas gaaridiisa, iyo wa bayaanihi la caddayntiisaba ay lisaanku ka cajisay allaha ku salliyo. wa bacdu intaa ka gadaal, fahaadihi midani risaalatun risaalo weeye, risaaladaasoo muujizatun gaaban, risaaladaasoo fii fiqhi siyaami siyaamka ama soomka fiqhigiisii ahaatay, soomka fiqhigiisa dhexdiisa ahaatay. salagtu waan qaaday buu yidhi sheekha, fiihaa risaaladan dhexdeeda maslakal ikhtisaari, soo gaabin waddadeedii baan qaaday, lal ishaabi warbadida waddadeedii ma qaadin, maslakal ikhtisaari soo gaabinta waddadeedii baan qaaday, lal ishaabi laa maslakal ishaabi warbadida waddadeedii ma aanan qaadin, wal-iijaazi wa maslakal iijaazi soo koobidda waddadeedii baan qaaday, lal idnaabi faraq dheeraynta waddadeedii ma qaadin.
waddada faraq dheeraynta ma aanan qaadin waxa walba inaan soo koobo ayaan waddadeedii qaaday risaaladaasoo fii dikri alaxkaami axkaamtii la xusideeda dhexdeeda ahaatay wa axkaamu siyaami iyo wa bayaani aaraa'i alculamaa culamada aaraa'dooda aaraa'daas la caddaynteedii dhexdeeda ahaatay min ikhtilaafihim aaraa'daasi culamada iskhilaafkoodii ah fiihaa axkaamta ay isku khilaafeen aw ijmaacihim amase kulankoodii oo calayhaa axkaamta ay ku kulmeen calaa maa wej dushiisana markaa aan ku qaado wejkaas ama aan ku caddeeyo wejkaasoo huwa isaguba raajixun raajix noqonaya cinda asxaabi almadaahibi madaahibta asxaabtooda agteeda madaahibtii almutabacati la raacayay gaaliban fii gaalibin madaahibta la raaco waa afarta madhaboode duuna tacarudi u banbixitaan la-aanteeda lidaqaa'iqi tafaasiili tafaasiisha kuwooda qarqarsoon aan u banbaxo tafaasiishii alfiqhiyati fiqhiga loo nisbeeyey anigoo wuxuu yidhi aan u banbaxaynin tafaasiisha daqaa'iqda ah ee fiqhiga aanan u banbaxaynin ayaan caddaynayaa buu yidhi madaahibta midooda raajixa ah inaan caddeeyo gaar ahaan madhabka shaaficiyada kamaa wuxuu yidhi bayantu sidaan u caddeeyey addaliila daliilka sidaan u caddeeyey iyo wa wajha dalaalati tusinta wejkeeda fiihi fi daliili daliilka dhexdiisa daliilka iyo wajha dalaaladiisa daliilkiina waan sheegay qaabka uu ku tusinayo uu daliil ugu yahayna waa sheegay maca dikri maa shay xusidiisa maceeda maagaasoo yumkinu uu suurtoobahayoba an yuqaala in la yidhaahdo cinda tacaarudi aladillati adillada iscaaridideeda agteeda weliba waxaan xusayaa bushi kasta oo suuragal ay tahay cinda tacaarudi aladillati in la yidhaahdo wax lagu daaweeyo aw tabaayuni alaaraa'i amase aaraa'da kala fogaanshahooda cinda tabaayuni alaaraa'i wax kastoo in la yidhaahda ay suuro galayso fii fahmi daliili daliilka fahmigiisa iyo walistinbaadi la soo bixidda fahmigeeda fahmu daliil iyo walistinbaadi fahmulistinbaad minhu marka daliilka xaggiisa wax lagala soo baxo ila markii aaraa'du ay iswaafaqsan tahay la garay laakiin markii tabaayunul aaraa' marka ay kala tagaan aaraa'du oo fii fahmi daliili walistinbaad ay ku kala tagaanna marka inaan caddeeyo calaa wajhi liijaazina aan ku caddeeyo soo koobidda wejkeeda aan ku caddeeyo walikhtisaari soo gaabin wejkeedna aan ku caddeeyo aydan mar kale kay tunaasiba si ay ugu munaasabowdo haadihi midani ay u munaasabowdo buu yidhi middatan alrisaalatu ee risaaladaasi siday munaasib u noqoto maca mukhtalifi lmustawayaati heerarka iskhilaafsan maceeda heerarka iskhilaafsanaantooda macood ayadoo heerarku iskhilaafsan yihiin oo waxa weeye heerarku kala duwan yihiin dalabadu ay joogaan ama culammadu ay joogaan ayaa haddana risaaladaani waxay tahay mid u munaasaba heer kasta oo la joogo mid u munaasaba mid cilmi badan iyo mid heer dhaxaa iyo mid hore oo ibtidaa intaba waa u munaasaboobaysaa mar haddii aan warka lagu badina la soo gaabiyo watafaacala weliba watatafaacala wakay tatafaacala si ay ula falgasho maca jamiici aladwaaqi dhadhanyaalka dhammaantood maceeda siday ula falgasho kay tunaasiba siday u munaasabowdo haadihi risaala watatafaacala wakay tatafaacala si ay ula falgasho maca jamiici aladwaaqi dhadhanyaalka dhammaantood maceeda siday ula falgasho qof kastaba heerka dhadhanka mas'alada uu ka dhadhansadaay uu ku marayo inuu markaa la falgalo matnigaani inuu la falgalo risaaladani waqad yadharu marka waxaa la arkaa buu yidhi inuu u daahiro ligayrinaa annaga kayrkeen macaashara shaaficiyati haddaanu nahay shaaficiyada kulankooda annaga kayrkeen oo shaaficiye aan ahayn inuu u daahiraan la arkaa fii haadihi middatan alrisaalati ee risaalada ah kayru maa shay kayrkiisu inuu u daahiro
maagoo rajaxnaahu annagu aan raajix yeelnay haddaanu nahay shaaficiyo haddaan madhabka shaaficiyada nahay waxaan annagu raajix ka dhignay inuu kayrkood u daahira ayaa la arkaa madaahibta kaleeto oo mimaa kayrkaasoo mimaa kii ka mid ah amase waxaad tidhaahdaa maagaas aanu rajaxnay oo mimaa kii ka mid ah ama mimaa kii ahba nactaqiduhu annagu aan aaminsannahay oo ictiqaadsannahay oo wanadiinullaaha ilaahayna aan kaga diin yeelanayno bihi maaga oo min madhabi imaaminaa imaamkanaga madhabtiisii ah ashaaficiyi awowgii shaafici loo nisbeeyey radiallaahu canhu xaggiisa allaha ka raalli noqdo wa ardaahu allahana isagu marka waxa weeye allaha raalli yeelo ilaahay ha raalli geliyo wa ardaahu allaha raalli geliyo oo waxa weeyaan radiallaahu canhu ilaahay isaga ha ka raalli noqdo wa ardaahu isagana allaha raalli geliyo walaa naciibu mana ceebaynayno daalika duhuurkaas ma ceebaynayno calayhi kayrka dushiisa ku ceebaymayno annaga kayrunaa kayru shaaficiyada wa haddii mas'alada annagu aan shaaficiye haddaan nahay aan qabno kayrkeed u daahiro ku ceebaymayno buu yidhi kayrkaas in kaana haddii kayrkaasi uu yahay min ahli lcilmi ahlu cilmiga hadduu ka mid yahay iyo walmacrifati ahlu macrifada hadduu ka mid yahay hadduu ahlu cilmi yahay haddaanu ahlu cilmi ahayn haddee uu dadka on iska khilaafayo kaasi waa ceebaysan yahay laakiin ruux ahlu cilmi iyo fahmigiisu uu markaa dhinacaan khilaafay ku ceebaymayno wainamaa in kale maahee naciib waan ceebaynaynaa kullal caybi ceeb dhammaystiran ayaan ceebaynaynaa man ruuxii baan ceebaynaynaa hajama weerara cala nadari fakarka qofka weerara iyo walijtihaadi ijtihaadka qofka weerara duuna macrifatin aqoon la'aanna ku weerara wax macrifaa isagoon haynin biqawaacidihi iyo qawaacidi nadari walijtihaad nadarka iyo ijtihaadka qawaaciddiisii oo usuululfiqhigii ah isagoon waxba ka garanayn iska weerara kaas waan ceebaynaynaa buu yidhi kullal caybi wa ilmaamin wa duuni ilmaamin duuni macrifatin buuna iska yuu ceebaynayaa iyo wa ilmaamin wa duuna ilmaamin garasho ka sokay biasbaadi wuxuu yidhi biabsadi mabaadi'ihi mabaadi'i nadari nadarka iyo ijtihaadka mabaadi'dooda kuwooda marka basiidka ah garashadiisa la'aanteed isagoon kuwaas garanayn absadu mabaadi'ihi isagoon garanaynin mabaadi'da basiidka ah kuwooda basiidka ah isagoon nadarka garanaynin nadarka mabaadi'diisa kuwooda basiidka ah isagoon garanaynin iska mucaaradeeya kaas wuxuu yidhi waa ceebaynaynaa iyo wa maqaasidihi maqaasidi nadari walijtihaadi isagoo aan garanayn maqaasida laga leeyahay bal iskaba dhaafe rubamaa waxaaba la arkaa kaana inuu ahaado miman qolo inuu ka mid ahaado lam yajid ilqiraa'ata akhrintiiba aan helaynin isagu bacdu weli aan gaarin waa ruux aanba helaynin qiraa'aad oo matniga iyo waxa culummadu qoreen inuu akhriyaba xataa aan gaarin oo uu fahmo bal inuu wax ka istimbaado iskaba dhaafe oo masaa'il kale ee ka dushooda ka fahmo iskaba daaye waxa weeye qofkaan aan cilmulqiraa'aad xataa aan sixi karin oo aan mutuunta akhriyi karin ayaa waxaa la yaabaa buu yidhi inuu markaa ceebeeyo masaa'ilu nadari walijtihaad inuu ceebeeyo kaas wuxuu yidhi marka waa ceebaynaynaa midka noocaasi ah wamaa akharahum maxaa farabadiyey alla farabadanaa buu yidhi fii haada zamaani zamankan dadka aan kitaabka ayagoon fahmi karin meesha ku qoran dhahaya aayadda waxaasan ka fahamnay ama xadiidka waxaasan ka fahamnay matnigii la soo qorayna aan fahmi karin oo akhriyi karin saa'ilan xaala aan ahay baan caddaynayaa buu yidhi mid su'aalanaya allaha ilaahay tacaala digrigiisu sarreeya an akuuna inaan ka mid ahaado qad wufiqtu in lay waafajiyey inaan ahaado qad wufiqtu in lay waafajiyey fii maa shay ramaytu aan ganay ilayhi maaga waxa aan ganay inaan u asiibo oo aan lay waafajiyo oo wa asabtu aan asiibo fii maa cawaltu wixii aan cuskaday calayhi maaga dushiisa daliilka aan cuskadayna inaan asiibo oo waxa aan ganayo oo masaa'isha aan iftoonayana aan waafaqo oo lay waafajiyo aan ilaahay su'aalanayaa
والله إلهنا المستعان كلا كالما ويديستوي وهو إلهنا حسبنا كافي النجوي ونعم الوكيل وكيلنا سجاء نعم هذا. تعريف الصيام هذا محله وموضعه. صام وحل هذا الله تعريف انتسا. الصيام صيام كل لغة من لغة حق اللغة هو الإمساك وأفيسوي. صام وحال لغاهان ليراهدا الإمساك وأفهيسي وحون لغا جوغسدوي ويستعمل وحال الله استعماله في كل إمساك دمانتيسا الله استعماله وح لغا جوغسدا oo dhan ayaa loo isticmaalaa xagga luqada yuqaalu waxa la yiraahdaa saama wuu istaagay ama wuu soomay wuu ka joogsaday idaa sakata haduu aamuso canil kalaami ka joogsado ويقال وحال إذا صامت الخير فرده با استاغي إذا وقفت مركي استاغتو أو أي سعودكي كاستاغان وصامت والله استعماله كما يقال سيدلو يراهدو صام إذا أمسك مركو أفايستو عن الكلام هذا الكمركو كأفايستو كجوكسدو ومنه وحانك من نغانيو إمساك عن الكلام صامكي وكسو أروري قوله تعالى الله قولك سيبا كمدا أجري إلهي سبحانه وتعالى isagoo ka xikaayoonaya markaa gabadhii maryama ahayd khayrka badnayd faquli inni nadartu lirrahmani sawma inni aniga nadartu waxaan nadray lirrahmani allaha rahmaanaha sawman ay imsaakan canil kalaami baan u nadray oo falan ukallima alyawma maantadaan la hadlimayo insiyan insi qofna la hadlimayo wa amma siyaam ya rabtaabu sharcan min sharci xagga sharciga فهو صيامك إمساك وأفيس إمساك ومخصوص لقاري لي إمساك ويانو يعني وحويان إمساك مخصوص وإمساك مخصوص لقاري لي عن شيء لقاري لي شيء قاسو مخصوص لقاري لي عن شيء لقا أفيستده شيء قاسو مخصوص لقاري لي وإمساك معروفة هذا لقا مسعانا هينه طعامك oo laga afaysta ah waa imsaaq maxsuus ah oo la khaas yeelay hadana wuxuu ku khaas yahay in marka mufdiraadkii laga afaysto sida uu noo sheegi doona sheekha can shay'in laga afaysto shaygaas oo maxsuus la gaar yeelay shay walba ma aha waxa laga afaysanayo waa shay maxsuus ah waa mufdiraadkii fi zaman la afaysto زمن كاسو مخصوص لقاري يالي ومالك يا الله فيسنيا ومالمها رمضان كمدا من شخص حقي سنكا هذا شخص كاسو مخصوص لقاري يالي ومسلم عاقله وظاهر عن الحيض والنفاس فالشيء المخصوص لقاري يالي الذي كيوي الذي شيء كاسو يمسك لقا فيسنيا عنه شيء حقيسه هو المفضر ومتك وحفورنيا شيء لغا فيسنيو ومخصوص كاهي والمفضر على ما سياتي سيده نو ايمان دونتنا marka looga afaysto هو المفضر waa kii وحفورنيي على ما qaab dushiisana looga afaysto سياتي نو imaan doona والزمن كي المخصوص لغار yeelay هو زمن kaasi يوم الصيام وصوم كمالنتيسا من طلوع الفجر فجر كدلشدي سلغا بلابو الى غروب الشمس الى قرحدع لغا غاريو الشهر الذي يجب صومه هذا محله الشهر شهري الذي شهريغاس يجب صومه صومكيس واجب هذا محله محلكيس وي وشهر شهري الذي شهريغاس يجب صومه صومكيس واجب هو شهر رمضان بش ليرا هذا ويه لقوله تعالى إله قولك ساء الدليل إلهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان بش ليرا هذا الذي شهري ويه أنزل لدجي فيه الذي قد حدث القرآن كالدجي هدى هاديا حاله قرآنكم مدهنونين أيوه للناس ضدك وهنونين أيوه وبينات حاله هي حجوين عض من الهدى حجوين كاسو من الهدى هنون والفرقان حال يهيك العضين وإلفا حويان وفارقات ويان آيات كاسي كوا كلا فرقين أيوه حقا يبادل كلا فرقين أيوه
فمن شهد قفك مركا حاضرة منكم أدينك حال وإذن كمد يهي الشهر بشاس ولا تعريفي الشهر وشهر رمضان قفك حاضرة فليصوم وصوم هذه شروط وجوبك أو كامل يشر ولا يجب مواجبها يصوم غير رمضان غير كي صوم كيس مواجبها بأصل الشرع شرع أصل كيس مواجبها بالإجماع إجماع أهان وحان بشهر رمضان أهيني أصل الشرع مكو واجبها وذلك عدم الوجود كاسنا لأجل ما رواه البخاري ومسلم بخاري مسلم وحي وريان دراد دوي عدم الوجوه ومن قوله نبي قول كيسيا صلى الله عليه وسلم أو قولي حيث سأله مركو نبي ويديا الأعرابي كير باديها عن الإسلام إسلام ماذا مركو وحكا ويديي فقال نبي يري وصيام رمضان أركان الإسلام كي مركو النبي وشيغي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام ودن مركو النبي وسوتريي وحكو داري وصيام رمضان رمضان كسومي ديسي قال مركاسو أعرابي وحيري قال الأعرابي با وحيري هل علي غيره سيدا كوي كلا دنبا صلاة مركو وشيغي شنط صلاة بوحيري هل علي غيرها مركاسو لا إلا أن تضوع الزكاة وشيغي هل علي غيرها لا إلا أن تضوع الصوم وشيغي هل علي غيره صومك انت اشيكت بشهر رمضان وحانا هين ما لا يقول لي قال النبي وحير لا الا ان تضوع الا ان سنه فلان يسد ما هانه بشهر رمضان وحانا هين لوغما لها حديث كاسا وحو دليل u yahay in bisha waajibkeeda la isku raacsan yahay ramadan on kaliya ay tahay aslu sharciga illa waxa adiga marka waajibaad caarid uu keena waa jira sida noo soo socdo illa annahu laakin annahu shaniye قد يجب الصوم صومك واجب على الأركان بأسباب كواجب على الأركان أسباب تاسو عارضة عارضة دبك يمادي كالكفارة سيدا كفارة دي أوكالي كفارة قدك أوكالي وحويان وجزاء السيدي وغارك مركز جزيسي سو قدودي سي أوكالي في الإحرام إحرام كنحديثة هدي وقفكم محرم يهي ugaar hadii uu marka dilo soo gudida ugaarkaas haduu marka misli yahay uu masal leeyahay masalkiisi baa waajibayo masalka hadii la waayo waxa weeyaan ama masalkiisi ama bedelkiisi baa waajibayo dacaam ah qiimihiisi oo dacaam ah ama dacaamkaasi intii mud oo uu noqdo maalmad waati soomku marka dambe waajibahay iyo غير ذلك inta غيرkeeda oo asbaabi waajibisay oo صومك نذرك هاي كمديهم وأما أحكام الصيام صومك أحكام تسمي يا ربتا وعلى من روح دشي سمنكو يجب الصوم صومك واجبيه فسنذكره عن حسين بيري بعد قليل مري وحير كدب أيان حسينا وحير كدب أيان حسين دونا أيان حسين بيري صومك أحكام تيسا يعد صومك واجبيه هل يكره مكراهية أن يقول الإنسان إنسانك إنو يراهده رمضان إنو يراهده مجردا عن الشهر حال يامد بش لقد ارترى وآن لدهن شهر رمضان أيضا لدهن رمضان أو مجرد إنو يراهده مكراهية مسكراهية معها قال أصحاب الإمام مالك أصحاب الإمام إمامك أصحاب تيس مالك ابن أنس رحمه الله تعالى وعوير أصحاب مالك وحير هذين وإمام مالك وإمام دار الهجرة وصاحب المذهب أصحاب تيس وضدك فقهاء هاي سقوا أبتر سنة وحير هذين يكره وحا كراهية نغنية أن يقول الإنسان إنسانك إنه يراهد رمضان إنه يراهد إنسانك رمضان إنه يراهد بدون إضافة كلمة شهر كلمة ذا وإضافين تذا لأن تذا إليه إلى رمضان الله إضافه شهر رمضان إن ليراد مويه رمضان كليه إن ليراد أيوا كراهية دين فلا يقال لديهم هاي إلا شهر رمضان وحنهين لديهم هاي بيراد سواء وحايق كان هايدا هناك هلكا قرينة هاتيا أم لم يكن معها ننا
أما قرينة ما أهاننا قرينة لغو قرانيو إن رمضان كي شهر رمضان لوغا جيدو إيا إني سنة هانين إني هاتين سنة هانين ما كلا قادين مركا وزعموا وحين الشاكتين أن رمضان لفظي قال اسم كان رمضان اسم يهي اسم كاسو من أسماء الله تعالى إلهي أسماء دي سكمده وقول كي مركا وردنا إمام النووي وأن أذكارك كسا مرناه قال البيهقي وحير إمام البيهقي وروي وحال وري ذلك قول كاس عن مجاهد بالغ وري مجاهد بن جبري والحسن بالغ وري حسن البصري والطريق طريقة سؤال موصل قارسين إليهما لوضع شيخ قارسين أو واويني ضعيف طريق وضعيف طريقة وكو قاري سنة كودا يا طريق ضعيفة أيغو رق يرير معها ورق جبل لأه لكن طريق الله نسبين أو سيمر يا ضعيفة واحتجوا وحين حجيستين بيري مالكية وحي حجيستين على ذلك أرنكا أو كراهية بما رواه بيهقي وحو وريي لفتركيس عن أبي هريرة على وريي عن النبي نبي حالك وريي صلى الله عليه وسلم أنه النبي قال إنه يري لا تقولوا هدهننا رمضان هدهننا فإن رمضان اسم مقعوية اسمه من أسماء الله تعالى كمده ولكن قولوا لها شهر رمضان إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الله نسبي وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا حديث ويحديث ضعيف وضعيف ضعفه وحان ولب ضعيفية البيهقي هذا صار إسقى ضعيفية وغيره وذهب بعضهم مرك مالكية غار كمدهن وحي كتغان إلى تفصيل كلبحين إن لكلا دقدقو لكلا عديو لكلا قاضو بينما إذا وجدت مركي لهلو قرينة إيو وإذا لم توجد قرينة مركان قرينة لهلين بينما إذا وجدت قرينة مركي لهلو إيو وإذا لم توجد مركان قرينة لهلين إن لو كلا قاضو وفقالوا وحي راهدين إذا وجدت هذه لهلو قرينة داسو تصريفه رمضان إليسو إلى شهر بشأو إليسو وإن بشي تهاي لغا فهميو فلا كراهة مجرته وإلا هديك ليوان قرينة دا لهلنا فتكرهوا على كهذا بيرادين أيها وركاسي وتقالوا وحي يرادين فيقالوا وحال ليه صمنا وان صمنا رمضان بان صمنا قرينا الله يا مانتا أو صمنا باو قرينا إن رمضان كشهر رمضان لو جهده وقمنا وحان سو جيدنا يوم ضاعيسني رمضان iyadana waa qariinadii bay yiraahdeen Ramadan in looga jeedo qiyaamul leylkii Ramadaanka ayaa la xiriiriyo qariino ku tusinaysa in Ramadan bishahr Ramadan looga jeedo waxay yiraahdeen waa Ramadan sidoo kale qariino waxa wata Ramadan ba afdalul ashhuri bilayaalka kan ugu fadliga badan waa Ramadan afdalul ashhuri bilayaalka kan ugu fadliga badan weeye taa asaguna qariino wata wala karaahiyya majirto في هذا مدك كان وحي هذا المركز لفظيان وح كراهية يكون جيران للقرينة لأجل قرينة دراد ديدا وإنما إن كلمة يكره وح كراهية بيرادين أن يقال إن ليراه جاء رمضان بايمد وأحب رمضان بانجعل لهي سدا إن رمضان كلي الله خصيصه يضع صوصا قرينة وذن تاسا كراهية بيرادين لكن لو مرة أحسن وأركضون تاسا راجحة قال الإمام النووي مركب وحير رحمه الله تعالى إمام النووي سوى وحير والصحيح صحيحه الذي صحيح ذهب إليه المحققون كوا محققين تدين تحقيقي أي كتغاني أنه شاني لا كراهة وحكراهية إن سنكجر وفي ذلك أرنكا هذا ترى جاء رمضان بايمد هذا ترى أحب رمضان من جعلها يا صوم رمضان من صوم وحكراهية قرينة الآن بكراهية ما سمجوك تبيري والمذهبان لودي مذهبود الآخران كله oo iyagu haddaan soo marnay kuwana dhahayeen qariina hadii la joogo hadii la helo karaahadu waa suulaysa kuwana yiraahdeen qariina iyo qariina la'aan ba karaahiyadu waa taagan tahay yiraahdeenna faasidaani waa kuwa faasida buu labada madhabna wuxuu yiri mas'aladan dhaxdeeda xageeda waa ka faasid buu yiri لأن الكراهة محايلي لأن الكراهة كراهدي إنما إن كلامه تثبت ويسقناتا
بالنهي الشرعي شرعي النهي سيكسقناتا ولم يثبت من سقنان فيه في كراهته شيئا لك هشديس النهي صحيح نهي صحيح كما سقنان إن مركا كراهية أيتهان شرعي كما سقنانينو شرعي كما سؤارورين إن أي كراهيتها إن سيدان لوغو دواقه ودليل سقنو صحيح كما سو نهي كما سؤارورين ليس كما نهيين نهي كنا وحويدا نهي غير جازم كا أيا كراهية ليرا نهي جازم كا هنا وحوي حرام وي وقولهم وحير قول كودا مالكية قول كودا أي كو قولان إنه وحير وقولهم قول كودا إنه قول كاني إنه كاللفظ كاني أو رمضانه من أسماء الله بوكمديها أي كو قولان وقولهم علماء مالكية قول كودا إمام نوبة وتوركه أي كو قولان إنه قول كان رمضانه لفظ اسم كان رمضانه من أسماء الله بكمدها يكو قولاني ليس بصحيح صحيح معها وركاس لما نبت قلنا يو رمضان أيا أسماء إلهي كمدا مسلم معها صحيح معها ولم يصح منا أنصح فيه في كونه اسما من أسماء الله تعالى إنه يها اسم أسماء إلهي كمدا ما صحيح نغن وما أنصح شيئا كما أنصح وأسماء الله إلهي أسماء دي سنة توقيفية ويانا وكود الاستاق لون نسبي وواحترسان ولو ثبت دو سقنان لها أنه اسم كان رمضانه اسم وياي ومن أسماء الله كم إذا هدي حتى سقنان لها إذنا لم يلزم اللازمين منه اسم كاس سقنان تيس كما اللازمين كراهة كما اللازمتين بي كراهة كما لازمتين حيل أسماء إلهي وحي وقيب سمان كوا مركا وحوية مشتركه ضد كلاتنا لوجو مجعابك لوجو إلاقي كره إلهينا أسماء دي سكمل يكوا خاص يسقوا ليه وحكي لوجو مجعابي كرين إلهي سقى حكم مجعابي النبي قال عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم وأسماء دي مركا يسقوا اسكلها مركا سداس وكله وحي مركا مشترك wax kale dadka kalena lagu magacaabi karo si majaazi ah ilaahayna xaqiiqadiisa uu iska leeyahay iyo kuwa aanay ilaahay qeyrka aan lagu magacaabi karin sida Allah iyo Rahmaan oo kale ayaa marka kala jiro marka isimkaani hadda xataa haduu sugnaan lahaa kuwa mushtaraga uu gali lahaa haduu xataa sugnaan lahaa inuu ism ilaahi yahay ثم قال وحير إمام النووي وقد ثبت ثبتت وحسقناتي أحاديث باسقناتي أحاديث تاسو كثيرة فربدا أحاديث تاسو من الصحيحين صحيح في الصحيحين لبدا الصحيح دحدد هذين في تسميته وحينا وحويان أي كسقناتين أحاديث تاسو في تسميته نبي مغعابديسي رمضان او مغعابه من غير شهر الآنوي أما تسمية شهر رمضان لغو مغعابه من غير شهر وبشان إن رمضان لغو مغعابه من غير أن يذكر شهر أيضا لحسنين في كلام رسول الله بكسقناته صلى الله عليه وسلم سواء رمضان كليا لغو شاقي أيضا محكالياته غرينا لو شاقين شهرنا آن لحسنين أيا صحيحين كسقناتي منها وحانا كمد أحاديث تاس وحا كمد حديث أبي هريرة حديث كسيبا كمد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين إذا جاء رمضان هدير رمضان يماده وشهر رمضان مولهن الضي فتحت والله فراه أبواب الجنة جنة البابية ذي والله فراه وغلقت وانا الحرا أبواب النار البابية ذي والله حرا وسفدت الشياطين تينا والله سلسلة ذي والله حرحرا شياطين تاسي واتي لبشينا يدول ليه جري شياطين تهدي الحرا وحا إسدلي وحا إسداعي وحا إسحمنا يودن بيغاني محا وقصوان
bani aadamka maxaa ugu sabab ah haddii shayaadiintii laga xiray marka culamada qaar waxay yidhaahdeen shayaadiinta maradadooda si riwaaya ku soo aroortay maradatu shayaadiin kuwooda waaweyn oo maradada ah la xirxiraa oo kuwii yaryarka ahaabay la iska dhici laayahay insigiyo marka duufsanayo ama culamada qaarna waxay yidhaahdeen ma ahane waxaa weeyaan shayaadiinta kulligoodba waa la xiraaye waxa hadda dembiga dadka ku qahraya oo ku khasbaya waa nafta oo awal tarbiyadii shaydaanka qaadatay wey رواه البخاري بحديث كوري يو مسلم تاريخ تشريع الصيام هذا محله تاريخ تشريع الصيام صام كالله الشرعيين تيس تاريخ دي هذا محله وي صام وحل إلى مركل الجدي لقد بدأ الصيام صام كيو باللوضي في أول الإسلام إسلام كأول كيس بصيام 3 أيام صدح أيام وضل سومي دي بوكو باللوضي من كل شهر بالكست حق إذا لقى صومه وبصيام يوم عاشوراء يوم عاشوراء سومي دي أيوكو باللوضي أول إسلام كا وحال سومي جري بالكست صدح مالموض لقى سومي جري مال انت عاشوراء اللي هذا بيش محرم أي طبعا تانا ولا سومي جري ولا جوغي ثم مركا كدب نزل واحد دقي قوله تعالى الله قول كيسي إلهي وكيري كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وإلهي يري صام بالله إذن أمره ولا إذن كفرد يالي دشينا لغو قدري كما كتب سيد الله فرد يالي على الذين من قبلكم كوي إذن كوري سيد الله فرد يالي وكالي فكان شانق وحوها من شاء قفك دونا صام إنو صامه ومن شاء قفك دونا أفضل إنو أفره وآيات دا سلفتر كيدو وجوب مركز ما لا بده أن دنعنا لو اللي حكر ما أهين لقوله تعالى الله قول كذي في آخر الآية وكيري وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين وآيات سوحا لغوف السري وعلى الذين كويدوش يا صامك وهذا وحا هذا وعلى الذين كويدوش يضيقونه صامك أودي فدية يا هاتي طعام مسكين قودنتي سبا هاتي إنو مالنكي إنو مسكين انت قودي صومكي اسك دايو أيا مركاسي وحوي لوغا كافتوم هي صومكينا waa la soomayay hadii uu doono inta soomka iska daayo ayuu marka miskiin quudinaya soomkina iska daayo inta xoogaa asxaabtu dhib ku noqday soomkii ayay masaakiinta iska quudiyeen waa heer labaad oo uu soo maray soomku waa shahru ramadaan iday in la soomo iyo in marka la iska daayo ayaa taqyiir u ahaa soo maray marka in idcaam la sameeyo lagu bedelo isagoon musaafir ahayn ama aan mariid ahayn ثم نزل مركز وحا سودغي قوله تعالى الله قول كيسي وإلهي كيري شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه شهر رمضان إن وسو قدرت مركب مبتدا ما شكعت فن الإرادة هي أيام معدودات كهرسي هي أيامها سي شهر رمضان وي إن لا شهر رمضان الذي كي وي labadaba waa la icraabay alladhi shahru ramadan ki hiya ayamaha si shahru ramadan way alladhi ramadan kaas unzila la dajiyay fi ramadan ka dhaxdiisa waa quraanka la soo dajiyay waxa la soo dajiyay waa jumlatan waahidatan weeyana min lawh al-mahfuz baa laga soo dajiyay ila bayt al-uzza ayaa la soo dajiyay bayt al-uzzati ayaa lagu soo dajiyay min as-samaa'i dunya في سماء الدنيا سماء الدنيا دحلد بيت العزة بيت ليرادو يا جملة واحدة اسو دميسترن لوو سو دجiyay امين markan ramadaan ay tahay leeylatul qadr u yahay laakiin quraanka marka 13 sano ayuu soo 13 sano ayuu soo degay aayatan bacda aaya ala saaha hasabil wiqaa'i dhacdooyinka marka si waafaqsan ayuu soo degahayo waxaan la sheegayaa nuzuulkan ramadaanka la soo dajiyay waxa weeyaan inna anzalnahu fi laylatil qadr leeyahay waxa weeye waa jumla asagoo isku duuduuban la maxfuudka laga soo dajiyay waxa la keenay baytul izza baytka la yiraahdo oo samaa dunya ku yaala marka wuxuu yiri hudan xaalu yahay haadiyan mid hanuuninaya ayaa quraankii la soo dajiyay linnaasi dadka hanuun xaalu u yahay
وبينات حال يهي حجوين عد ومن الهدى هنون والفرقان أي الفارق حال يهي مد كلا فرقين أيو حق عبادك كلا فرقين أيو فمن شهد غفكي حاضرة منكم أدينك حال إنكم يا شهر بشفال يصومها صوم سداس القرآن كوسو دغي markii dambe بصيغة الأمر والأمر يقتضي الوجوب واجب إن tahay qof kasta aan dhinacna looga aadi karin ilaa macduur inuu noqdo mooyee ayuu ku dambeeyay markaas soomkii فكان مركشانigu wuxuu ahaa waajiban waajib ama فكان wuxuu ahaa shaanigu wuxuu ahaa waajiban inuu waajibay على كل من روح كل جيسي من كو شهيد شهر بش صومه أن يصوم إنه صومه شهر إنه صوم ما دام قادرا إنتو ياي مد قادر كوا على الصيام صوم مدد وقادر كو ياي صوم إنه صوم أي شأن إنه واجب كتاي وشأن وهذا وروى أبو داود وحوري أبو داود وحوري مرسلا حال ياي حديث كاسي مد مركب مرسلا ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط عن معاذ بن جبل إنه كوري رضي الله عنه أنه معاذ قال إنه يري أحيل الصيام صومك ولا وريجي ثلاثة أحوال حالة صدحها صومك لوريجي صومك صدح حالة أيوك سودل وريجي هب حالة أيو صومري قال وحير معاذ بن جبل وكان رسول الله رسولك إلهي وحوها صلى الله عليه وسلم يصوم منه صومه 3 أيام صدح بري من كل شهر بالكستين وكصومه وهير لصومري ويصوم وحوك لو صومي يوم عاشوراء يصومي هل حال أساسها فأنزل الله إلهي بسود جي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم آيات أسبع إلهي سود جي مركز يا صومك بشان لصومي ولي مركز دنا وحوي هيركي لبعض بجوجايو qaar baa dadka khiyaar loo siiyay in dacaam iska bixiyaan oo halkaas la maray midka saddexaad wuxuu ahaa faman shahida minkum shahra falyasumhu وروى البخاري وحاي ومسلم وحي وريان يو أبو داود والترمذي وحي وريان عن عائشة حالة وري رضي الله عنها قالت وحي تري كان عاشوراء وحوها يوم عاشوراء يصام إلا الصومه قبل رمضان كهر انت رمضان لواجبين بقى يوم عاشوراء لسوم جري waxaa loo soomi jiray can wujuubin baa laga soomi jiray hadda laakiin waa sunno waa baaqi in sunno in la soomaa iyadoo sunno ah falamma nazala ramadaan markuu soo degay kaana wuxuu shaanigu noqday man shaa qofkii doonaa isaama inuu soomo waman shaa qofkii doonaana afdara inuu afuro oo waxa weeyaan waa almutanaffilu amiiru nafsi weeyo waa sunnu isku bedelay haddii doonana qofku inuu soomo fadli doonayo qofkii doonana iska afuro وفي رواية وعاك سغنا قالت وعيتي مرك عائشة كان رسول الله رسولك الله وحاه صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء إنه أمره صوم كيوم عاشوراء وفي رواية وعاك سغنا رواية سو أخرجها وسو ساري أبو داود والترمذي ومالك وكان وحوها هو كان يوم عاشوراء هي الفريضة وها يوم عاشوراء وحوها فرضك كليه نلقوا واجب أي يوم عاشوراء مركي هوري وروى مسلم وحوري عن جابر بن سمرة وكوري قال وحير كان رسول الله رسولك الله وحوها صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء إنه أمر أيها النبي عليه الصلاة والسلام بصيام يوم عاشوراء يوم عاشوراء صوم كذا يأمري ويحثنا وانا نقبورني عليه صوم كاسدوشي نقبورني ويتعاهدنا وانا نبار باريو وآد بنوغا ورغبي أو نغو بارباري نغو فاجوني عند صوم يوم عاشوراء فلما فرض مركي الله فرض يالي رمضان ورمضان مركي الله فرض يالي لم يأمرنا النبي نما أمرن صوم عاشوراء نما أمرن ولم يتعاهدنا نما باربارين ونما فاجون عند صوم يوم عاشوراء حوى نما أمرن نما نراد عند صوم تيعدان سومين دان كما يالن إلى سنة اسكو بدلي وروى البخاري إمام البخاري وحوري في صحيحه صحيح سوعك وري تعليقا معلقا حال وياهي مثل تعليجي معلق وابنت كسنة كقيبته هرى لقويه وعالقاه بصيغة الجزم نوحك وري لا صيغة التمريض صيغة التمريض كما ورينا صيغة الجزم بكوري
عن الأعمش بن عمرو وكوري قال أعمش يري حدثنا أصحاب محمد نبي الله محمد أصحاب تسيبان نوشيكي صلى الله عليه وسلم قالوا وحير هذا نزل وحد دقي رمضان حكم رمضان حكم كيسيبا دقي فشق عليهم صحابة دشود أيود دبي ورمضان كارن كيسواد بوغد بودين فكان مركب من روح باوحواها أضعم قودية كل يوم مال كست مسكين قودياي ترك الصوم صوم كينو كتغو ممن روحالو كمد يهي يضيقه أوده صومكي واي وحي اسagoo soomkii awooda ayaana iska dayn jiray soomka intuu idcaam ku badasho oo dad miskiin intuu qoodiyo ayuu wuxuu ku bedelan jiray soomka tarkigiis waruqisat waana la ruqsay lahum li saxaabada fi dalika idcaamkaas loo ruqsay awalu soomkii waqtigii awalka awal islaamka fakana man adcama wuxuu ahaa midka qoodiya kulla yawmin maalin kasta miskiin qoodiya ay taraka soomka inuu ka tago ممن حال وكمد يهي يضيقه ولي صومك أوده ضدك صومك أوده ولي بوي مد كان أودي معها والرخصة وأنا للرخصي اللهم لصحابتي في ذلك إدعام كاس للرخصي فنسختها رخصة داس مركا ولا نسخي إلهي با نسخي فنسختها وحا رخصة داس نسخي وأن تصوموا خير لكم با نسخي يا آيات هذا سو شيء إنه ومن شهد منكم شهر فليصمه أمر كاسي وأن تصوموا خير لكم أيانا السخضي فأمروا والله أمري بالصوم صوم بالأمري قري قدر وين الصوم تام باليري إلا وفك معذور كامهن وروى البخاري إمام البخاري وحوري ومسلم عن سلامة بن الأكوع عن لقوري رضي الله عنه لما نزلت مركي سودكت هذه مدة الآية آية وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين مركي آية سودكتي كان شانه وحوها من أراد قفك دوناي أن يفضل ينوافره أو يفدي أو فدي بحيه قفك دوناي يفعل وسمين يوي حتى نزلت انتك سودكت الآية دي التي آيات بعدها كدن بيسيو فمن شهد منكم الشهر فليصم هيد فنسختها مركز إن السخضي تغيير كي بين السخضي قفك دوناي وفدي انتو بحيه اسكافريه آيات داهر وعلى الذين يضيقونه أي سيدا لو فهميو أهيد كدبنا مركا حاولوا نسخي فمن شهد منكم شهر فليصمه مركاس واجب waxaa noqotay inaanu idcaam ka bedel noqon karin soomkii oo qof la arkaa ay laga maarmaan tahay ilaa in macduur noqdo mooyee inuu soomo wallahu subhanahu wa ta'ala